wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Dr. Saad Ali Shire ayaa ka hadlay saameynta ay doorashadu ku yeelanayso hanaanka dadaalka lagu jiro ictiraafka iyo sida Soomaaliya ay u danayso dunidu ay saaxiibada yihiin ee dhinaca doorashada ka wada shaqeeyaan. wasiir Saad wuxuu aad u amaanay doodii loo qabtay saddexda musharax ee saddex xisbi qaranka Soomaaliland inay ugub ku tahay qaaradda Afrika. waa amaana nidaamka dimuqraadiga ee qaadanay waxa la inagu amaanaa hab wanaagii ay noogu dhaceen doorashooyinkii faraha badnaa ee soo maray laakiin si wanaagsan ay noogu socotay laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe inay yara jiraan xajiimeyn iyo xanaf hadal inuu jiro oo aad moodo yacni quruxdii iyo wanaagii iyo sumcadii aan ku kasbanay ilaa imka habka waxay noogu socdeen inaad moodo inuu mataqaana runtii uu wasakheeyo saameeyay ayaad moodaa cayda iyo dhaleecada iyo ceebayntu cod ma keenaan cadaawadun bay keenaan cadaawaduna wuxun bay keentaa un burbur bay keentaa waxba ma dhisto marka waxaa loo baahan yahay siyaasiyiintu inay runtii ay ka foojignaadaan oo ka fogaadaan wax allaaliyo wixii xajiimeyn iyo colaad in dadka dhexdeena ku abuuri kara ee wax yeeli kara geedi socodka ictiraafkeena iyo horumarkeena inay iska jiraan waxyaabo fara badan baa jira oo dadkan u baahan in lagala hadlo dhibaatooyin fara badan baa hortaagan dadkeena maanta 70% dadkeenu waa bilaa camal weeye caruurteena 50% wax ma bartaan iskuul ma tagaan dadkeena 50% waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan caruurteena dhalataa 10 mid baan gaarin 5 jir umul raaca waxaynu ka nahay caalamka number 1 ka ugu horeeya baynu ka nahay dadkeena 50% in ka yar ayaa biyo nadiif ah hesha marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa u baahan in laga hadlo oo cid waliba ama taqaanay dadka ay hor keento waxay ka qabanayso inta badan axsaabta barnaamijyada arrimaha in badan maxaan ilaahay ka hadla waxa loo baahan in lagu ekaado in laga hadlo barnaamijyada dadku waxa ay sugayaan laakiin ma sugayaan maxaan ilaahay in la saxajiimeeyo la saxaayo la saxabeeyo arrinkaasi wuxuu dhaawacayaa geedi socodkii ictiraafkeenu dhaawacaya doorashadeenan caalamka oo dhan baa isha ku haya guulo badan baynu ka soo heynay ilaa maanta doodii maanta dhaweed dhacday waxay mid ugu bay ku ahayd maxay gobolka haddana Afrika baana ku ahayn waa tusaale wanaagsan weey oo kamida tusaalayaashii hore Faransa. wasiir Saad wuxuu ka hadlay heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkadda DP World ee maalgelinaysa dekadda Berbera oo tilmaamay inay tahay waxyaabaha ay xukuumadani ay ka qabatay kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca horumarka. maxay wakiiladana aynu qoranay saaxiibtinimadii naga dhaxaysay jaarkeena ka Djibouti ka Ethiopia ka wadamada kale jaarkana iyo caalamkaba runtii intii hore uu ka sareeyaa waad ogtahay aduguba waxa maanta soo gabagabeynay arrinkii maxaan ilaahay wada hadalkii naga dhaxeeyay nakii khaatumo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qaadatay door xoog leh arrinka ay ka qaadatay maalgashiga laga sameeyay Berbera 442 milyan insha Allah ku rajo weynaay in ay DP wada geliso Berbera qayb bay ka ahayd wasaaradda arrimaha dibadda laftigeedu marka haddaba ka eegto xagga siyaasadda iyo xagga maalgashiga iyo xagga arrimaha gudaha amba xagga maxaan ilaahay tayeenta wasaaradda intaba wax weyn marka qaban. وحسن فرح قمان عبدي عمر جبريل تلفزيون قرن Somaliland Hargeysa.